waliba ayaa la qabtaa caawo kale waxaa lagu qabtaa qaacatul mutamaraad oo ah hoolka shirarka caalamiga ee Asar Shariif caawa waxaa qalin jibinaya arday Soomaaliyeed oo tiradoodu gaaraysa ilaa iyo 450 arday Soomaaliyeed waxayna ka kala baxayaan jaamacadaha kala ah jaamacadda faca weyn ee Al-Asar Shariif jaamacadda Qaahira jaamacadda Aynu Shamsi 6 Oktoobar xafladan waxaa ka soo qayb galay oo hadallo ka jeediyay dareenka ardayda soo jiita habeenkii xalayta ahaa xildhibaan Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar isla markaana wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya ambassador Cabdullaahi Xasan Maxamuud gudoomiyaha hay'adda nabadda iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Sheekh Cabdinaasir Jaamac Warsame iyo gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar Cabdinaasir Cumar Cismaan dhammaan waxay isku raaceen sida aadanuhu ay muhiim ugu tahay waxbarashada waxaana dhammaan 450 arday ee Soomaaliyeed ee caawa qalin jibinaya loo soo jeediyay ammaan ku saabsan heerka ay maanta gaarsiiyeen waxbarashadooda waxaana mas'uuliyiintani hadalladoodii ka mid ahaa waxaan mar kale aad ugu faraxsanahay konton iyo dhowr arday iyo ardayadood oo Soomaali ah oo jaamacad dhameeyay inaan xaflad u sameeyno dadku aad bay dad intii hadashay waa in mahad celiye wala astaxiq hada kull hada waxa weey meesha intaan joogo horta arday baan halkan ka ah ardaynimadana waan aqaanaa ataataf maaha waan jecel ee baan igu wiil ama gabadh markuu ii yimaado inaan wixii suuragal oo meel mari kara inaan la sameeyo waa aad iyo aad baan u jecel waxaan aan rayrayn iyo farax weyn u hayaa xaflad dadkan jaamacadaha ka baxay gabdhaha nagan quruxda badan ee xuuriyaadka iyo wiilaha la igu qaldamin marmarna waan gabyaayo gabdhaha naga marar badan baan gabay ku sifeeyay inkastoo mid hebel la yiraahdo qastin wardadiyahow indhaha naga buuxiseen iyo qalbiga naga khayr ka buuxiseen khayr Allah idin siiyo isku duubnaad waxa laga maarmaana inaan u degdegno cilmiga barashadiisa maxay cilmiga la dhalata ma jirto xaflad ballaaran